Asalaamu calaykum waraxmatullah. Isku soo noqod wanaagsan asxaabay. Adduunkan aynu ku noolnahay waxa maalin walba ka dhaca dhacdooyin kala duwan. Qaar ka mid ah dhacdooyinkaas waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dhacdooyin yaab badan, waxaana laga dhigaa dhacdooyin aan la ilaabi karin, halka qaar kale la iska ilaabo isla daqiiqadii ay dhaceen. Waxaana muuqaalkan ku soo qaadanaynaa qaar ka mid ah dhacdooyinka yaabka badan ee ka dhacay dunidan ee sii daawa muuqaalka. Ninkan horteena ka muuqda waxaa lagu magacaabaa Steven. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa isaga oo maraya waddo u dhow gurigiisa ayaa waxaa ku dhacay gaari, wuxuuna galay xaalad adag. Steven ayaa soo naxay 3 isbuuc kadib, wuxuuna bilaabay inuu raadiyo ninkii gaarigii ku dhuftay. Markuu helay kadib, wuxuu ka iibsaday gaarigii uu ku dhuftay, isagoo kaga iibsaday lacag gaaraysa $1,500. Kadib markuu ka iibsaday gaarigii ayaa waxa uu bilaabay inuu ka argoosto oo uu jajabiyo gaarigii lagu dhuftay, isagoo sheegay in ay noloshiisu ay khatar u gashay gaarigan dartii ayna mudan tahay inuu ka argoosto, balse xaaskiisa ayaa ka soo gaartay kana diiday inuu arrinkan sameeyo. Waxaa jira buuro aad u dhaadheer oo ku kala yaala daafaha kala duwan ee adduunka, waxaana buuro walibaana ay leedahay ama loo sameeyey magac u gaar ah, sida buurta ugu dheer Afrika ee Kilimanjaro. Sidaas si la mid ahna dalka Australia waxaa ku taala buur lagu magacaabo buurtii Bahdilka. Waxaana buurtan u magacaabeen buurtii Bahdilka 2 nin oo lagu kala magacaabo Hume iyo Hovell. Sanadka markuu ahaa 1894, labadii nin ee aynu soo sheegnay ayaa waxa ay dooneen inay koraan buurtan si ay u arkaan wax ka dambeeya buurta. Kadib markii ay si dhib leh ku soo gaareen dusha sare ee buurta ayaa waxay damceen inay eegaan halkii ay rabeen, balse waxaa buurta horteeda buux dhaafiyey geedo aad u fara badan aadna u dhaadheer, midaas oo keentay in raggani ay arki waayaan halkii ay iskugu sheekeeyeen inay arki karaan, waxayna ogaadeen inay ku soo khasaareen buurtan. Waxayna markaa kadib buurtan ugu magacaabeen buurtii Bahdilka, ilaa haddana waa ay sidataa magacan. Xilligii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka waxaa dhacay xasuuq ba'an oo ay isku geysteen dalalkii markaa isdagaalayay, waxaana qaar ka mid ah ciidamadii dagaalami jiray ay ku qasbanaadeen inay beddelaan wejiyadooda si aan loo garan, waxayna ka cabsi qabeen in la dilo haddii lagu arko wejiyadooda saxda ah, midaas oo ku khasabtay inay wejiyadooda dhabta ah ay wax ka beddelaan. Waxayna qaar ka mid ah ay goyn jireen qayb ka mid ah wejigooda sida daanka oo kale, halka qaarka kale ay adeegsan jireen khalfoofta dadkii dhintay iyo khalfoof gacan ku samays ah oo loo sameeyey shaarabo iyo sunniyo. Sawirkan horteena ka muuqda waa nin jeexay qayb ka mid ah daankiisa si aan loo garan. Dadkii sameeyey arrintan ayaa ahaa kuwo si nabad ah ugu soo laabta dalkooda, maadaama ay dagaalka ku geli jireen weji aan wejigooda ahayn. Waxaana lagu tiriyaa in fikraddan ay ka dambeysay naag lagu magacaabo Anna Coleman oo u dhalatay dalka Mareykanka. Koofidan horteena ka muuqata waxaa lagu magacaabi jiray The Isolator Helmet, waxaana lagu yaqiinay waxqabadkeeda aad u sareeyo, waxaana la adeegsan jiray xilligii lagu guda jiray qarnigii 20aad, xilli ay teknoolojiyaddu u ahayd mid aan horumarsaneyn. Koofidan waxaa la sameeyey sanadka markuu ahaa 1925, waxaana loogu talagalay in mashquulka iyo caajiska looga yareeyo qofka shaqaynaya si uu u noqdo qof waxqabadkiisu uu xooggan yahay, waxaana taas suurtagelinaysay qaabka ay koofiddu u samaysan tahay. Koofiddu waxay ka samaysan tahay alwaax, waxayna xanibtaa dhawaaqa dibadda kaga imaanaya. Sidoo kale koofiddu ma aha mid u suurtagelisay qofka qaba inuu arko wax ka baxsan waxa uu qabanayo, midaasoo qofka ka yareynaysay mashquulka badan iyo caajiska. waxba ma akhrin karo ilaa aan xirto koofidan. Sidee u aragtaa adiga? Mahadsanid. Ha ilaawin subscribe.